taariikhda waxyaabaha si gaar ah bani'aadamka muhiimad ugu sii waa ilaalinta sirta. Tanina baasweero in ay soo ifbaxaan ayay sabab u noqotay. Waayo macluumaad si loo qariyo waxaa laazim ah in macluumaadka furo cid kale aysan ogeyn in uu ku xirnaado. In macluumaadna furo qaas ah lagu xiro wadooyin dadka qaarkood ay ku sheekaystaan ayay ka mid tahay. Dowlad walba waxay ahmiyad gaar ah ay siisaa wax qarinta. In wax la qariyana taariikhda bani'aadamka bulsho walba waa wax ay samayso. Si qofka xogtiisii uga ilaaliyo dadka cadowga ku ah ama dadka qaarkood iyaga oo hal meel wada jooga si aanan looga shakinin darteed qaababka ay ku wada hadli karaan mid ka mid ah waa baasweerka. Waagii hore dadka marka ay rabaan in macluumaad ay isku gudbiyaan xarfa gaar ah oo qofna uusan fahmi karin iyaga mooye ayay isticmaali jireen. Tanina waxaa soo hoosgalayo baaqyo dadka aysan fahmi karin. Xoogaha kadib dadku marka ay horumareenna waxaa la soo saaray aalado qadiimi ah sida halxiraalaha oo kale. Aaladani waxaa dusheedii ku qoran xarfo alfabeetiga. Xarfooyinkani qaabkay isugu aadayaan ayaa lagu dhex qarin jiray meseejka qofka uu doonayay in uu gudbiyo. Xitaa dadka aaladani heer ay jeclaysteen ayaa waxaa xitaa loo isticmaali jiray askarta, waxaana si gaar ah loogu magac daray aaladda signaalka M94. koox sirdoon ah marka ay rabto in koox kale oo sirdoon ah xog ay u gudbiso qaab iyaga dhexdoodii oo keli ay yaqaaniin ayay aaladani isugu aadin jireen. Kadibna qofka kale ee sirdoonka marka aaladani gacantiisii ay soo gasho si degdeg ah wax uu akhrisan karaa meseejka aaladani ku dhex qarsan. Laga soo bilaabo Maraykanka ilaa Jarmalka, aaladani M94 waxay ahayd mid casri ah oo dadka si active ay u isticmaalaan. Xoogaha markii la sii horumarayna dadku waxa ay bilaabeen in ay soo saaraan makiinado qaas ah. Makiinadahani sida keyboardka oo kale, qofka marka uu xaraf taabtaba makiinadu waa ay wareegsataa ilaa ugu dambeyn qofka meseejkii loo soo diray xarfuhu ay ka soo baxaan. Aaladahani qaabkay u shaqeeyaanna qaar ka mid ah ilaa maanta la isticmaalo waa boorsooyinka baasweerada noocani oo kale lagu xiro. Koox marka ay ahmiyad gaar ah ay siinayso habkay u horumarin lahayd sida xogta loo ilaaliyo, qolo kalena waxa ay xoogga saari jirtay sida baasweerka loo jebin lahaa. Ilaa maantana laga soo gaaro kombiyuutarada heerka quantumka, dagaalkani baasweer jebinta waa mid socda. Waxaa jiro cilmi gaar ah oo lagu bartay habka baasweerada ay u shaqeeyaan iyo sida difaac looga samaysan karo, waxaana loo yaqaanaa cryptology. Marka baasweer jebin la dhahana waxaa ka qayb qaata xubno dowladaha ka tirsan sida sirdoonada, dadka xumaan raadiska, jaajuusiinta iyo qof walba oo dana gaar ah leh. Teknoolajiyada marka ay horumartayna waxaa sahlanaatay in wax loo baasweer garay habab aad u adag si sahal ah aanan lagu jebin karin. Sidoo kalena waxaa sahlanaatay hababka dadka xogtoodii looga xadi karo iyaga oo weliba aanan dareemsanayn. Si kastoo xog baarista iyo waxyaabaha la midka dadka jaajuusiinta shaqadoodii gaarka ah ay tahay, haddana waxaa jira dad cadow ah oo dadka u adeegsan kara si xogtoodii iyo dhaqdhaqaaqoodii meelo fogfog ay kala socdaan. Softweero waxaa jiro qofka moobilkiisii ama kombiyuutarkiisii isaga oo waxba aanan ka ogeyn loogu shubo, kadibna qofka si walba uu moobilkiisii ama kombiyuutarkiisii baasweer ugu xirto, softweerka lagu shubay ayaa qofka dhaqdhaqaaqiisii lagala socon karaa. Haddii uu rabo qofka softweerka ku shubay, qofka kaamirada moobilkiisii ama kombiyuutarkiisii ayuu furi karaa isaga oo aanan ogeyn. Haddii uu rabo qofkaasina mikrofoonka ayuu ka dhagaysan karaa qofka waxa uu ku hadlayo. Cid ka badbaadi kartaa tani laga soo bilaabo dadka shacabka, xitaa heykirada waaweyn ilaa xarumaha dowladda ma ay jirto. Qof heykar ah in isagana heykar kale lagu noqdo waa waxyaabo naadir ah balse dhici kara. Waxaa nasiib daraa in dadka badankoodii maanta aysan fahamsanayn muhiimadda baasweerku uu leeyahay. Iska badaa xitaa waddan ama magaalo in bambo ama nuclear lagu tuuro waxaa maanta ka sahlan kana saamayn badan
in wadan weeraro dhanka internetka in lagu soo qaado. Internetka waa mid ka mid ah maanta awoodaha ugu waaweyn ee dunida yaala, sababtoo ah tiknoolajiya aanan software ama computer ku xirnayn maanta dunida casriga ma ay jirto. Diyaaradaha, maraakiibta, ilaa xitaa hosbitaalada, korontada, faranjeerka guriga ku yaala dhammaantoodii software ayay ku shaqeeyaan. Haddii softwareadani hal mar la wada ciladeeyo wadan, waxaa hubaala in wadankaasi dib uu ugu noqonayo boqolaal sano. Si fudud ayaana dalka colaad looga dhex abuuri karaa. Sidoo kale weerarada qadka internetka marmarka qaarkood in qof lagu dilo ayaaba loo adeegsan karaa. Matoorka diyaaradaha ee hawada ku jira ayaa weeraradani qadka internetka lagu ciladeyn karaa. 2003 waxaa dalka Mareykanka lagu soo qaaday weerar aad u xoog badan oo dhanka internetka, waana weerarka uu Mareykanku u yaqaano roobka Titan. Hay-adaha ugu sarreeya ee dowladda ayaa weerarkani si gaar ah target looga dhigtay. Waxa uuna ahaa weerarkii ugu dheeraa ee Mareykanka isaga oo wax iska caabin ah aanan samayn lagu waday. Weerarkani ayaa waxaa la sheegay in Chinaha uu ka dambeeyay, waxaana Mareykanka laga xaday macluumaad badan sida dhaqdhaqaaqa askarta, istikhbaaraadka iyo waxyaabaha la midka ah. Weerarkani qadka internetka habka uu Shiinaha u soo abaabulay waa mid cajiib ah. Ka hor inta aysan Chinaha xogtani dalkiisii aysan ku dhicin, waxa ay xogta u gudbinayeen koonfurta Korea, halkaasi ayna meelo kala duwan u kala gudbinayeen. Ugu dambeynna marka ay xogta meelo kala duwan ay soo mariyaan ayay Chinaha si toos ah u imaan jirtay. Sababta ay sidani u sameynayeenna waa in weerarada iyaga iska baryeelaan. Tanina mar walba ayay ku dhacdaa xarun walba ee dowladeed, laakiin inta badan dowladuhu inta ay awoodaan weeraradani way iska difaacaan. Si kastoo weerarada u kala xoog badan yihiin, nooca ugu halista badan ee cyberka waa nooca tiknoolajiyada iyo bani'aadamka tiknoolajiyada noloshiisii ku xiran oo dhan kuwa baabi'in kara. 2010 barnaamijka nukliyeerka ee dowladda Iiraan Mareykanka ayaa ka baabi'iyay. Dowladda Iiraan santraaladeedii nukliyeerka kombiyuutaradii ku xirnaa ayaa hab khiyaana oo aanan la fahmi karin ayaa looga baabi'iyay. Waxaana la sheegaa in loo adeegsaday flash xajmigiisu uu weyn yahay oona lagu soo shubay software halis oo virus ah. Viruskaasi marka flashka lagu shubay santraalada nukliyeerka meel u dhow ayaa lagu tuuray. Inta badanna qof haddii flash ama memory meel uu ka soo qaado maanta, waxa ugu horeeya ee qofka uu sameeyo waa in flashka kombiyuutarkiisii uu geliyaa si uu u fiiriyo qofka iska leh flashka iyo waxa ku jira. Shaqaalayaasha santraalka nukliyeerkana iyaga oo aanan ku baraarugsanayn ayaa la sheegaa in flash si kas ah meel loogu tuura ayay kombiyuutaradoodii shaqada oo dhan laga maamulay ayay geliyeen si ay u fiiriyaan flashka waxa uu yahay. kadibna viruskii sida loogu talagalay waxa uu u gudbay kombiyuutaradii kale. Nooca viruskani ee kombiyuutarkoodii u gudbayna waxa uu ahaa virus signal beena bannaanka u soo dira santaraalada oo dhan. Maadaama kombiyuutarada laga maamulay viruskani kombiyuutarka ugu jiray, waxa uu kombiyuutarka u soo dirayaa notification in loo baahan yahay in santaraalada awoodoodii la xoojiyo. Way xoojiyeen mar walba oo signal fake ah kombiyuutarka viruskani uu u soo diro ilaa ugu dambeyn santaraalada iskoodii ay u wada qarxeen. Tanina waxay cashar u noqotay adduunka oo dhan. Tekniigani in bannaanka wax lagu tuuro dadka qaarkood ayaaba xitaa maanta sameeya. Qofka meel uu og yahay in qofka uu arkayo ayuu wax ku tuuraa. qofkaana kombiyuutarkiisii marka uu geliyo wax walba ee kombiyuutarkiisii ugu jiray saacadda uu rabo qofka inuu furto iyo qofka inuu dhageysto ayuu jaanis u helayaa. Sida dabiiciga ahna qofka waxa uu bannaanka uu ka soo qaaday waxa ay yihiinba waxa uu jecel yahay in kombiyuutarkiisii uu ku tijaabiyo. Waxyaabaha noocani oo kale ahna waa in dadku aysan ku degdegin. Tanina shirkadaha waaweyn, xarumaha dawladda, ganacsiyada aad ayaa looga taxadaraa. Shaqadani waxa garaynta ahna meel walba ee qofku uu ku sugan yahay waa shaqo uu samayn karo. Dadka waxyaabahani shaqadoodii ay tahayna waxay isugu dhex jiraan jaajuusiin, dad niyadoodu ay wanaagsan tahay oo raadinaya dulduleelada systemka uu leeyahay, iyo dad kale oo xun. dadka niyadooda ay wanaagsan tahay oo heekarada ah waa dad sistamyada ka dhex raadinaya duleel ama meel laga soo geli karo. In wax la hegareeyana wax walba waxa ay ka bilowdaan in sistamka duleel yar oo bannaanka sida daaqada oo kale in laga soo galo. qofka haddii guri uu dhiso sida caadiga ah laazim waxa ah in guriga albaab ama daaqad inuu u sameeyo.
qofka heekanka ahna albaabkaas sida uu ku soo jebin lahaa ayuu waddo walba u maraa. haddii uu ku guuldareystana in albaabka ama daaqadda uu jibiyo sida derbiga oo kale ayaa waxa uu bilaabaa in uu qodo. qofkuna waxaa laga doonayaa ka hor inta aanan loo soo gelinba derbiga gadaashii in derbi kale uu ka dhex dhiso. haddii qofka derbiga uu soo jibiyo kadibna derbiga kale si ay ugu adkaato in uu ka soo gudbo. maanta dunida ma jiro system aanan la jebin karin, laga soo bilaabo websaytyada waaweyn facebooka, youtube-ka, xitaa googlaha dhowr jeer ayaa la isku dayay in la hagareeyo. khubaro Chinese ah ayaa matoorka googlaha si ay xog dheeraad ah uga ogaadaan qaabka uu u shaqeeyo weeraro aanan kala joogsi lahayn ayay googlaha ku soo qaadeen. si kastoo shirkad weyn ah googlahu u yahay laguma guulaysan weerarka. bani aadamka maalinta ka dambaysa waxa uu samaynayaa horumar aad u weyn oo dhanka iyo tiknoolajiyada, balse mar walba ee tilaabo horumar ah loo qaado dhanka iyo horumarinta sistamka, dhinac waxaa ka xoogaysanaya sida sistamka lagu jebin lahaa. tusaale, waxaa maanta bani aadamku uu ku fakarayaa in la dhiso ama mustaqbalkaba la dhisi doonaa magaalooyin wada tiknoolaji ah. guriyaasha iyo meel walba waxa ay noqon doonaan mid tiknoolaji ah. baabuurta xitaa si aysan shil u gelin sida maanta jirtaba waxa ay leeyihiin sistem otomaatig ah. marka uu baabuurku u soo dhowaado meel uu ku dhici rabo, fareenka ayaa si otomaatig ah oo ka baxsan awoodda darawalka u qabsamayo. baabuuradanina meelaha ay ka shaqeeyaan maanta wax shilah kama dhaco. inkastoo tani bilow ay tahay marka baabuuradani aanan darawalka wadin ay soo ifbaxaan oo tiknoolajiyada ku socda, dhinac nolosha bani aadamka ayaa khatar weyn soo wajihi kartaa. qofka doonaya xilligaasi inuu dad dhibaatay keliya waxaa ku filan in guriga ama baabuurka qofka uu hagareeyo. tusaale, muhiim ma noqon doonto xilliga in qofka biskoolad ama qori sida maanta oo kale in lagu dilo. tusaale, qofka marka uu ku socda baabuurada aanan wax darawalka aanan wadin, sistamkaasi hadduu hagareeyo qofka waxa uu kordhin karaa xawaaraha uu baabuurka uu ku socdo, ama waxa uu xitaa qadka uu ka saari karaa fareenka. kadibna qofka sidaasi ayuuba shil ku geli karaa. kadibna qofka sistamkiisii oo la hagaray darteeda ayuu shil ku geli karaa. si lamid ah maanta waxaaba qofka ugu filan in sistamka faranjeerka gurigiisii in la jabsado, waayo maanta qofka wax walba ee suuqa uu ka keeno si aysan u halaabin waxa uu geliyaa faranjeerna majoritiga dadku maadaama ay isticmaalaan sistamka qofka haddii laga jibiyo saacado gudahoodii waxaa macquula waxyaabihii qofka ugu jiro oo dhan in ay noqdaan waxyaabo aanan la isticmaali karin. xitaa qofka waxaa laga yaabaa in qabowga uu siyaadiyey kadibna wax walba dhagax oo kale ay noqdaan. mar haddii shayga software uu ku shaqeeyo waxaa lama huraana in qof kale uu ka samaysan karo shayga sida uu doono haddii aanan laga taxadarin. maantana wax aanan lagu samayn karin ma ay jirto. xitaa qalabyada caafimaadka ee hosbitaalka yaala qofka haddii uu jebiyo ama uu wax ka qardo, dhaqaatiirta qalad ayay samaynayaan, waayo maanta dhaqaatiirta xaaladda bukaanka si ay ula socdaan waxay 24 saac indhaha ay ku hayaan kombiyuutarka. haddii kombiyuutarka sida Iiraan oo kale qaladaad lagu sameeyo kadib, dhaqaatiirtuna sistamka oo qaldamay darteeda waxay sabab u noqonaysaa in bukaanka qaladaad ay ku sameeyaan. wadamada ugu fiican dhanka waxgaraynta ama weerarada internetka ee Aasiya waa Chinaha, Ruushka, Bakistan iyo India. inkastoo Maraykanka, Kanada, Ingiriiska iyo Jarmalka iyaguna ay yihiin wadamo awood ku leh waxgaraynta. Ruushka waxaa la sheegaa in weerar uu ku qaaday sistamka doorashada dalka Maraykanka. waddan oo dhan ayaa nidaamka doorashadiisii weerarada internetka wax looga bedeli karaa. muhiim ma aha casrigani in qofka bambooyin iyo qalab badan in uu qaato, waayo haddii hab fisikaal ah loo dhiga aad ayay u adag tahay in nidaamka doorashada waddan in qof keligii qashqashaad uu ku sameeyo. laakiin kombiyuutarka dhexdiisa qofka sariirtiisii isaga oo iska jiifa ayaa awood u leeyahay in sistamka doorashada waddanka oo dhan in qalqal uu geliyo. madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden waxyaabaha uu Putin madaxweynaha Ruushka uu ku eedeynaya maanta waa in doorashada dalka Maraykanka weeraro dhanka iyo internetka in uu ku soo qaaday. sidoo kale dalka Ruushka waxa uu weerar xoogan uu ku qaaday 2007 dalka Estonia.
waxa uuna ruushka dalkaasi uu ka jaray korontada, waxa kale uu ka jaray biyaha, waxa uu sidoo kale uu ka jaray telefishinada dalka ka howlgalay dhammaantooda, waxa uu sidoo kale jaray ATM-ka lacagaha lagala baxo, xarumaha baarlamaanka weeraro kala duwan ayaa lagu qaaday. dalka Estonia oo dhan hal mar daqiiqad gudaheedii ayaa waxa ay ku noqdeen dhowr qarni ka hor. meel koronto iyo biyo aanan lahaynna sidoo kale wax lacag ah bangi aanan lagala soo bixi karin, xitaa dukaan wax laga iibsan kara aanay jirin ayay dadka ku noqdeen. weerarkani 2007 ka dhacay Estonia waxa uu ahaa weerar aad u weyn oo dunida oo dhan ay ka qaylisay. weerarada noocani oo kale ee qadka internetka laga sameeyo waddan oo dhan waa mid qaribi kara. wadooyinka casriga ah ee waddan dagaal iyo dhibaato looga dhex abuurana waa qaababkani. haddii xilliga Estonia aad ku noolaan lahayd raashinka guriga ku yaala un mooye wax kale oo aad heli kartana aysan jirin, ugu badnaan dadka marxalad noocaasi oo kale haddii ay la kulmaan isbuuc wax ka badan uma ay dulqaadan karaan. waddanka ugu awoodda badan dunida midka uu yahayba haddii weeraro noocani oo kale lagu soo qaado isbuuc gudihiisii dalka, isbedelo waaweyn ayaa ku imaanaya. tanina waxay imaanaysaa xilli nolosha bani'aadamka oo dhan ay ku xiran tahay kombiyuutarada. kombiyuutar la'aan mar haddii nolosha aysan socon karin ilbiriqsi gudaheeduna, dadku waa inay u diyaargaroobaan in cillad guud mar un ay imaan doonto. khubarada internetka walaacoodii xoog badan ee mustaqbalka waa in serveradani waaweyn ee noloshani maanta ku xiran in maalin un ay burburi doonaan ama in ay daciifi doonaan. waxa ayna ku guda jiraan maanta wadooyinkii looga hortagi lahaa. inta aanan halkaa dheer loo gudbinba, maanta internetka oo keliya oo waddan ka maqnaada ama qofka saacado kooban internet la'aan uu noqda ayaa maanta dhalinyarada stress ugu filan. xitaa sida la ogaaday dadka qaarkood 24 saac internet la'aan haddii ay noqdaan waxay u dhow yihiin in falal dembi ah ay sameeyaan ama in naftoodii ay dilaan.